daawadayaal kulanti wanaagsan dhammaantiinba waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan kula yeelanayno waraysi Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah diinka jaamacadda lagu magacaabo Macalester University St. Paul oo ku taala magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka. Ahmed Ismaaciil Samatar waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada dalka Soomaaliya ee doorashada soo socota. sida awgeed ayaan maanta kula yeelanay halka uu ka degan yahay magaalada Nairobi oo hotelka Serena ee waraysigan aan la yeelanayno. Mr. Ahmed marka ugu horeysa ku soo dhawow telefishinka Soomaalisaad. Waad mahadsantahay walaal. waxaan jeclahay marka hore inaan ku weydiiyo inaad noo qeexdo CV-gaaga ama taariikh nololeedkaaga oo kooban. intaynaan taagelin waxaan jecelahay dadka idin dhegaysanaya amba daawanaya telefishinka Soomaalisaad inaan ku salaamo sida caadada noo ah haddii aanu nahay heel qaran xisbiga heel qaran magaca Ilaahay ee weyn wax walba yaqaana wax walba og wax walba xukuma oo gaashaankiisu uu yahay bini aadamku hadduu doonayo inuu meel gaaro inuu hoos galo magaca Ilaahay inaan hortayda ku salaamo oo islaamnimo ah oo ka guddoonay waxa soo raacday waxa weeye Soomaalinimo oo deeata aynu wadaagno islaamka kale inaga duuda hadaynu Soomaalinahay xisbigana hadafkiisu yahay islaamnimo iyo Soomaalinimo taasi waa koow salaantaas anigu waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Gabiley Hargeysa ayay galbeedka ka xigtaa waxaan 30 kilomitir ahayn waa dad xoolo dhaqatana ah beeralayna ah bayac mushtarina ku jira aniga dadkii dhalay kuwii dhalay ayaa halka ku aasan oo aniga magaalada degmadeeda awowgi farax wadaad la oran jiray ayaa halka ku aasan meel yar oo beeralay oo u jirta magaalada Gabiley waxaan 5 mayl ahayn abtiyaashay iyo hooyada iyo macooyooyinkay iyo adeeraday intii dhimatay halkaasay ku aasan yihiin inta noolina halkaas ayay degan yihiin Gabiley iskuulka ayaan ka galay iskuulka dugsiga Quraanka oo awi bareen aniga abtiya ahaay oo degmada laga yaqaan xagga Quraanka oo macallin Xasan Faahiye la oran jiray deetana iskuulkii caruurtu garaysay elementary-gii baan ka galay iskuulkaas oo aabahay oo Ismaaciil Samatar ka mid ahaa oo hormuud ka ahaa dadkii dhisay iskuulka oo madax ka ahaa iyo masaajidka jaamiciga labadaba dhismeeyay qayb weyn aabahay ka galay markaan dhameeyay iskuulka dabeetana Camuud ayaan tagay oo la geeyay Camuudna iskuulkii dhexe ayaa ku yaalay halka ayaan 4 sanadood oo boarding ah aan ku jiray oo qoyska iyo hooyada abaad arkaysa dad ugu baato 2 goor sanadkii boorama agteeda weeyi booraha meel qurux badan buu Camuud ku taala deetana halka markaan dhameeyay 4 sanadood ku xigayna waxaan ku jiray iskuulka sare secondary-ga ee Camuud marka 8 sanadood oo boarding ayaan Camuud ku jiray intaas marka ay dhamaatay xamar baan imid markaan GCE-gii imtixaankii dhamaynay iskuulka sare lagaga soo baxay oo marka England lagu soo sameyn jiray imtixaanka magaalada London jaamacadda ku taala University of London markaan imid xamar caasimadii wadanka meel waqtiga wax walba xamar ayay ka dhacayeen inaad timaado amba shaqaad u soo doonato amba scholarship aad u soo doonato xamar baan imid imtixaankii baan galnay idaacadda loo geliyay 3 qof baa marka la soo saaray in la qaadan doono oo mudiicnimada iyo sida warka loo sheego la bari doono mudiicin ka noqon doona ilaa 70 qof dad ku dhow ayaan imtixaankii ku galnay sanadkaas oo goorma waxa weeye 1968 ayaan filayaa inay tahay marka waxa aan ku galnay 70 qof dad ku dhow ka soo baxay Camuud ka soo baxay Sheekh secondary-ga iskuulkii kale iyo superior iskuulkii ahay magaalada Muqdisho ka soo baxay waqtiga aqoontu halkaas inteeda badan ayay mareysay marka imtixaankii waan helay anigu waxaan noqday faad qofkii koobaad baan noqday idaacaddii Radio Muqdisho ayaa la qoray halkaas la igu tababaray markii dambana aan warkii bilaabay inaan akhriyo oo aan aad uga bartay nin la oran jiray Yaasiin Xaaji Ismaaciil wuu nool yahay oo mudiic weyn ah ayaan ku hoos koray on warka isaguna oo qaar akhriyi jiray duhurkii iyo galnika dambe ana habeenkii iyo subaxii baanu saa u kala qaybsan jirnay 9 bilood baan deeta ka shaqeeyay Radio Muqdisho
dabadeetana BBC dii ayaa tidhi waxaan qaadanaynaa qof imtixaanadii baan galay BBC dii waan helay BBC dii baan sidaa ku tegay laanta af Soomaaliga magaalada London halkaasaan 4 sanadood in ku dhow ka shaqeeyay ku tababaray dabadeetana BBC dii markaan muddo joogay 4 sanadood waxaan go'aansaday inaan tacliin kala doonto oo waxaan ka yar baqay inaan ku gaboobo inaan war akhriyo intaan noolahay inkastoo madaxnimadu sharaf weyn leedahay khaasatan BBC da dabeetana Mareykanka ayaan anigu tagay oo halka jaamacad baa isi qaadatay la yiraahdo Wisconsin University of Wisconsin ku taala gobolka Wisconsin magaalada La Crosse la yiraahdo ayaan ka galay halkaasaan 4 sanadood ku jiray dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo taariikhda ayaan bartay economics politics and history dabadeetana waxaan u gudbay jaamacadda Denver ee Colorado halkaasoo master's degree iyo aan ka qaatay PhD-ga oo takhasuskayguna uu ahaa political economy dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga international political economy iyo falsafada social philosophy isku xidhan tahay ayaan takhasuskaygu ahaa Denver markaan ka soo baxayna jaamacad ku taala wadanka Mareykanka gobolka New York ayaan ka helay assistant professor qaadatay halkaasaan 10 sanadood joogay director baan ka noqday African Studies programka halkaa markaan taa dhameeyay markaa buugag aan qaarkood qoray oo PhD dissertation kaygii oo buug noqday meelo badan aan lecture ka jeediyay waxa la deetay igu yeeray inaan diin ka noqdo McAllister oo meel lagu yaqaano adduunyada laga yaqaano ku fiicanaan waa iskuulku ka soo baxay oo aad loogu barto dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo arrimaha caynkaas iyo science-kaba marka halkaasaan deeta ka noqday diin 18 sanadood ayaan diin ka ahaa hadda fasax ballaaran ayaan ku jiraa marka magaalada St Paul caasimadda waa Minnesota ayaan deganaan jiray hadda sidoo waan soo guuro xamar ayaan deganay marka waxaan filayaa intaas inay ku soo koobi karto aad dhawaan waxaad aasaasteen xisbi la yiraahdo Hiil Qaran meelo badan oo Mareykanka iyo dhulal badan oo kamid ah Yurubna waa la marteen haddana waxaa tahay musharax u taagan xilka madaxweynenimada ee xisbigaasi xisbigiinu muxuu kaga duwanaanayaa xisbiyada kale waa maxay political programkaaga aad rabto inaad ku gasho campaign-ka doorashada aad uga qayb qaadato horta xisbigu muddo imika soo jiray oo dhaqdhaqaaqiisa hore wuxuu bilaabmay 2009kii 10kii baa ku xigtay 11kiina wuu dhaqaaqay bishii February aakhirkeegii London baa lagaga dhawaaqay iyo magaalada Muqdisho muddo 24 saacadood ayaa u dhaxaysay dad badan oo ballaaran ayaa xisbiga ku jira oo qaarkood ay iga magac waaweyn yihiin amba aqoontoodu iga ballaaran tahay imika waxa la ii soo sheegay ugu yaraan 24 wadan oo adduunyada ah oo Soomaaliya ay ku jirto xisbigu inuu ka furan yahay oo dhalinyaradii Soomaalidu ay soo galeen dad badan oo boqolaal in ku dhaweyna waa magaalada Muqdisho qura ay kaga jiraan xisbiga oo maalintii dhaweedan ku aragnay xisbigu waxa ka yar horeeyay malaha anigu waxa ay soo galiyay ee keenay inaan in yar degdeg ugu taabto aniga 4 arrimood baa ay keenay horta inaan soo galo siyaasadda kow waxa weeye anigoo 30 sanadood wadanka darsayay oo si gooniya u arkay dhibaatada iyo tacabka wadanka haysta iyo balaayo iyo baaska 30 sanadood wadanka qabsaday marka sidii dhakhtarka waxa daristo 30 sanadood wax badan baa kaaga soo baxay oo laftaad ka garanayso marka waxaan isiri bal waxaan yaraa aqoontan aad haysay 30 sanadood waday wadankii waa kow talabaad waxaan arkay dadkaygii ummadii Soomaaliyeed oo dhibaatada haysata ay aad u ballaaran tahay oo ugu xumaato faqrigu ha ugu xumaato iyo gaajada iyo caafimaad darrada iyo aqoon darrada ummadda haysata oo intooda badan aad ka garanayso مليون iyo 300 oo kun oo Soomaaliya ayaa wadanka gudihiisa qaxooti ku amaanta 970 kun in ku dhowina hadana ka badnaynba waxay qaxooti ku yihiin wadanka dibadiisa oo dadaab Kenya dusheeda sare ugu yaraan 600 oo kun ayaa lagu hayaa caruur ah dad waaweyn inta diiwaan gashanay baa ka badan marka dalkaaga sida u tabaaloobay oo dhan walba adduunyadii ay ka soo xidhay waan u adkeysan kari waayay inaan dibadda iska joogo oo aan Mareykan shaqada wanaagsan iyo waqtiga wanaagsan aan iskaga jiro ta saddexaad ay soo raacdeen waxa weeyii sharaf darro Soomaali meel walba ka haysata
adduunyada meeshaad martaba marka layna waa Soomaali wajiga dadkaad ka garanaysaa sida maxaan ku dhahay lagaga yahay khasoonayo waxaad ka garanaysaa safar markaad u baxdo Soomaaliya haddaad ka soo baxayso waddankan Kenya imanayso soo socodka maalin dhan bay kugu qaadanaysaa oo meelo badan baa lagu soo fariisinaya lagugu baarayaa oo lagugu handiday yani ummadda sharafkeygii waxaan garanayaa anigu Falastiin baan tegey waqti imika 10 sanadood laga joogo dood weyn oo ka dhacday magaalada xarunta u ah Ramallah oo dadka Falastiiniyiintu ay kaga hadlayeen taariikhdoodii iyo noloshoodii maanta waxa haysta nin dhakhtara oo ka mid ahaa dadkii ilaa 700 qof baa meesha fadhiya ayaa istaagay oo Falastiiniya markaasuu yidhi war wax walba waxaan ku dhahay hayna qabsadaan laakiin waa inaan iska ilaalinaa sida Soomaalida inaan noqono waa Falastiin ayuu ka hadlay marka halkaas ayuu sharafkeennina gaadhay maanta saddexdaas ayaa horta anigu aan arkay waan u adkaysan kari waayey ma sharaf ma yeelanaysid 100 diin iyo 100 professor haddaad tahay oo dadkaagii ay sidaa yihiin sharaf kuma noolaan karaysa waxa ii soo raaco afraad inaan gartay dadkan wada socnaana ay garteen in wax laga qaban karo oo aanay rajadii dhammaan taasna way noo soo afartaas horta ayaa aniga waddanka ay keenay xisbiga xil qaran wuxuu kaga duwan yahay xisbiyada kale waa laba amuurood kow oo waaweyn qaar kale way jiraan kow sida aanu anaku u fahamnay tabaalada ummadda Soomaalida haysa balaaye baaska haysa sidaan u fahamnay analysis-kaydu way ka duwan tahay kuwa kale anaku waxaanu soo saarnay formula la yidhaaho 3 hal lagu daray 3+1 taa haddii la fahmana in wax laga qaban karo waddanka oo degdeg in fact wax looga qaban karo waddanka wadda kale la saari karo oo waxaan ka baxay saddexdu waxa weeye waxa gacantayna ka hadaynu Soomaalinahay inoogu jira maxay yihiin ugu horeeya waxa ugu horeysa iyadoo qarannimadii ay baabaaday oo dadkii ay isnaceen oo la kala tegay oo qaarkood ay ku leeyihiin qarannimo Soomaaliyeed finish way u dhamaatay lama soo celin karo qof walba iyo reer walba iyo degmo walba meesha ka baxsayaday jirtay anagu taama qabna waxaan qabnaa dhaawac weyn baa ku dhacay qarannimadii Soomaalida laakiin dhaawac waa la dhayi karaa haddii dawadeedii iyo dadkeygii naxariista lahaa ee fahmada lahaa ee daacadda ahaa haddii la heli karo talabaadii waxa weeye wixii dawlad la oran jiray oo xafiisyadeedii maalin walba ka dhabaynayay danta ummadda isku xidhay qarannimada shaqadeeda maalin walba qabanaya dadku ay arkayeen taasuna in taasaa baabaaday oo horta burburtay oo xafiis dawladeed oo maanta Soomaaliyeed oo safaarad amba xafiis shaqaynaya waddanka gudihiisa oo hawshiisa ka soo baxayo farta lagu fiiqa maanta anu ma arkayo inay jirto waxa yaalaana waa wada qolof kuwa dibadda iyo kuwa waddanka gudihiisa inta Soomaaliyeed ee ku dhex jiray ka shaqaynaya dadaalayana waxay u baahan yihiin kaalmo waayo waxba meel ma gaarsiin karaan haddaan ummaddu raacin marka dawladda wixii la oran jiray the state sidaas u baabay ta saddexaadna waxa weeye hoggaankii waddanka haddaanad hoggaan lahayna gurigu haddaanu hoggaan lahayn hoteelkan deganahay haddaanu manager iyo dadka kala accounts ka haya iyo dadka sales ka haya iyo kuwa ka shaqaynaya haddaan lahayn dad madaxa oo hawsha garanaya oo daacad ka ah oo kartideedii leh way dhamaatay saddexdaas markay ka qurmaan cidlaad soo baxaysa tii afraad baa imanaysa ta afraadna waxa weeye international relations oo +1 ka hay adduunyada kale sidaad ula dhaqmayso oo darisku ugu horeeyo taana waad ogtahay oo maanta meel alla meel aynu magac ku leenahay ama kartaan ku leenahay ma jirto Burundi oo wadamada ugu yar yar amba Uganda oo ah wadamada aan isla awsi waaweynay ayaa maanta Soomaaliya maxaan ku raahayay xukumo oo askartoodii joogtaay oo wadadaad martaba iyo meesha xafiiska tooyay ka hor imanayaan shalayna ka tababareen marka international relations sida loo soo celinayo waa in dib loo habeeyo siyaasadii dibadda ee ummadda Soomaalida amba dhaqaalaha sida loo keenayo aqoon sida loo keenayo adduunyada kale sida loola dhaqmayo in dib loo habeeyo dariska lagaga bilaabo ilaa madawada maaweyn adduunyada kuwa islaamka ah European Unionka adduunyada caynkaas xisaab cusub iyo xarfad cusub ayaynu u baahannahay taana laakiin saddexdaas ay halbowlo u ah afarta marka 3+1 saddexda hal lagu daray waxa weeye sida aanu u arkayno balaaye iyo baaska ummadda Soomaalida haysata xundurteedu halkay tahay waanu kaga duwanahay xisbiyada kale waxaanu kaga duwanahay xisbiyada kale de policy public policy arrimaha aanu ku dhaqaaqaynayna hor yaalanu dhiganay haddaanu berita qabanno xukunka waddanka waxay yihiin waxa ugu soo horeeya 9 baa priority-gaygu waa 9 way qoran yihiin wada macnayn kari maayo waqti ma hayno laakiin waan ku taataaban degdeg waxa ugu horeeya waxa weeye sida loo dhisayo ciidan Soomaaliyeed oo adduunyada ummadda Soomaalidana ka ilaaliya shisheeye amba badda ku soo xadgudba
ama beriga ku soo xadgudba waa kow ciidan Soomaaliyeed oo ummadda Soomaalida kala badbaadiyo kala ilaaliya oo kii xadgudba iyo kii maxaan ku nahay dhibaato la yimaada wax ka qaban kara iyo ciidan Soomaaliyeed oo ka qayb kali kara dhismaha ummadda ya amba wadooyin ha noqoto amba hawlo kale ha noqoto waa ciidan Soomaaliyeed waxaanu ku qiyaasnay 25 ilaa 30 kun ciidamada Soomaalida la dhisay inay noqdaan waanu xisaabsanay xoolaheega halka aanu ka keenay iyo trainingka sida loo siinay iyo dhismahooga waqtigu ku soconay anagu waxaan qabnaa 2 sanadood ya intay haday ugu badato inay ciidamadaas diyaar noqdaan xukunka la wareegaan wadanka amnigiisa iyo dibadiisa 25 ilaa 30 kun waxa kamid oo ku jira ugu yaraan 6 ilaa 7 kun inay noqdaan ciidamo Soomaaliyeed oo loo tababaray inay badda ilaaliyaan Coast Guard ayaa Ingiriiska lagu yiraahdo ciidamadii badda Soomaalida ilaalinaya waa baddii ugu dheereed Afrika ilaa 4 kun oo kiiloomitir bay ku dhowdahay khayraad badan baa ku jira laakiin maanta khasaareedii baynu arkaynaa amba iyadoo dad kale ay qaataan marka hawlaha caynkaas nabadgelyadii wadanka ciidamadii ilaalinaya waa koob laba ummadii Soomaalida sida loo heshiisiinay in iyadana si cilmiyaysan loo dajiyo ma aha un ay da'an ku daaye ma aha in la kala saaro boogaha yaryar iyo boogaha waaweyn in la kala saaro waa si cilmiyaysan researchka loo sameeyo dabadeetana hawshii laga qabanay oo hawshaas ay tahay iskugu dhex jirto in dadkii la baro sida la isku saamaxo in dadkii la baro sida cadaalad loo helo oo dadka laga gardaran yahay amba dhibaatada dheeraadka loo geystay sidii loo soo dhay lahaa ee noloshoodii loo soo celin lahaa ee cadaalad waxoogii loogu soo celin lahaa in la helo laakiin saamaxaadiina la barto soo hadda maad gar hawla caynkaasoo haddaynu waqtiyaysanaan ku tafaqeetir lahaa weeye laakiin jacayl cusub ummadda Soomaalida inuu dhex maro waa ayaw noqonaysa xundhur heshiisiis aan jacayl lahayn ma soconayo oo wax yar baa dhici doona waa isku soo boodaya laakiin hadduu jacayl gundeerib abuurmo de saamaxaad iyo dulqaadashiyo bal hubsano ayaa imanaysa waa inuu lahaan jirnay arrimaha caynkaas wax maaragtay maanta in dib loo sameeyo ma ogiye wax inagu cusub maaha taariikhda Soomaalida ay ku jirto waxa saddexeeyata dadka qaxootiga ah khaasatan dibadda jooga iyo kuwa wadanka gudaha joogan ku sheegay tiradooda sida loo soo dejinayo wadankii inay ku soo noqdaan amba degmooyinkii ay ka yimaadeen ay ku soo noqdaan waa hawl aad iyo aad u important oo imika in laga sii fikiraa anagu waanu dhiganay sida aan waxaanu ka yeelayno iskuuladoodii caafimaadkoodii guryaha ay seexanayaan biyaha ay cabayaan waxaa xisaabtoodii in meel la sii dhigo way soo adamad oo dadkii markay yimaadaan saani ay u galayaan laynkii ay u galayaan dadkeenii sida ahaa haddaan la soo celina dee khasaarihii Soomaalidu ma dhammaanayeen markay 2 malyan oo qof sida kaaga bay lahasan yihiin ay cayl iyo qaxooti noqdeen wadanka gudihiisa iyo dibadiisa ma noqon karino ummad sare joogto adduunyadu sharaf u yeesho inaguna wax ma qabsan karno marka hawsha dadka qaxootiga ama dibadda wadanka ha joogaan amba wadanka gudihiisa waa tad saddexaad inoo wixii waxa afrays oo halbowlo wax walba oo dhaqaale darrada wadanka iyo faqriga dadka dhalinyarada Soomaalidu markaad qiyaasto dadka da'doodu ay u dhaxayso 14 ilaa 25 waa boqolkiiba 5 iyo 30 dadka Soomaalida adduunyada kale dadka da'daas 15 ilaa 25 waxa weeye marka Japan iyo Europe iyo Mareykan dhulka ay hadday ugu badato waxa weeye 13 14 maxaan ku raad boqolkiiba wadarkasa laakiin de kuweena waxa inta u sii raacday shaqo ma haystaan waxa laga hadlayaa boqolkiiba dhowr iyo 78 qaarkood waxay ku leeyihiin 9 shaqo la'aan dee qof dhalinyaro ah rag iyo dumar oo da'daa jooga oo aan shaqo haysan oo mustaqbal haysan maxay yeelayaan dee inay badda isku tuuraan amba inay xaafadooda dhacaan iska daa Soomaalida kale waa garnayl cabaysan oo u diyaar inuu qarxo marka shaqo sida loo abuurayo dhaqaale soo dhis waa lagama maarmaan faqri baa cadawga ugu weyn noqday Soomaaliya taasi waxa loo soo dhisayana xisaabtu way noo taalaa annagu waxaanu ku qiyaasnay sanadkii ugu yaraan bilyan iyo nus ilaa 2 bilyan oo dollar in wadankii la geliyo oo wadooyinkii iyo airportskii iyo portskii iyo telecommunicationkii energygii hawlaha caynkaas in la galo ayaanu anagu ku hamiyeynaa xoolaha halka laga keenay qaar Soomaali ka iman qaarna adduunyada ka iman inta badan adduunyada ka iman laakiin Soomaalidu waa inay wax ku darsataa waxa soo raaca waa caafimaadka dib sida loogu soo dhiso oo cudurka wadanka yaala ya oo biyo la'aanta iyo biyo xumidu ay ugu horeyso waa caafimaadka in la soo celiyo public health in la soo celiyo magaalada Muqdisho wasakhda taala oo qura ayay ku tusaysaa cudurka ummadda Soomaalida la soo darsay waxa sidaa loo nadiifinayo iskuuladii iyo educationkii waxbarashadii dad caafimaad qaba oo wax bartay iyaga is dhisaya dadaan caafimaad qabin
oo waxbana aan baran jaahil iyo cudurna waa garbabeelo ma dhaqaaqi karaysa marka educationkii waxbarashadii baa kale waxa soo raaca waxa weeye arrimihii dibadda international relations kan ku macneeyay arrin kaloon jecelaha inaan ku taabto waxa weeye oo ku jirta 9 qodob ee annaka naga duwayad maxaan ku dhahay xisaabta kale waxaanu goosanay in la sameeyo degdeg loo sameeyo National Research Institute waxa weeye macahad weyn oo xoolo la hoos dhigay oo madax bannaan oo dadka Soomaalida kuwii ugu karti badnaan la isku keenay oo shaqadiisu laba amuurood ay noqonayso marka ugu horeyso oo laba branch laba xubnood yeelanay xubin waxa weeye dadkii cilmiga science iyo social science iyo hawlaha yaqaanay oo loo dirayo in ay soo baaraan si cilmiyeysan dhibaatooyinka ummadda Soomaalida haysta kuwa ugu waaweyn halka ay ka soo saaraan recommendations iyo public policy papers waraaqo cilmiyeysan oo dhigaya dawladdu waxay ku dhaqaaqayso oo dawladdu noqoto mid cilmi ku socota ana iska ahayn inta maalin shaah meel inta la fadhiisto la yiraaho madaxweynihii baa sidaa yiri ra'iisul wasaarihi baa sidaa yiri aanay noqon waxaas waxay nabaabiyo weey jaahilnimo kale wax ku daraysa qaybta labaad ee maxadka weyn wuxuu noqonayaa koox la sameeyay oo ah culimaa u diinka Soomaalida kuwa ugu waaweyn ee ugu ilbaxsan ee aqoontooda Islamic scholars aqoontooda heer sare oo adduunyo ay gaarsiisan tahay iyagana in laga soo saaro koox council ay noqdaan of Islamic scholars marka iyagu laba shaqo ay qabtaan shaqo ay tahay islaamku xadaaradiisa iyo cilmigiisa ballaaran iyo ilbaxnimadiisa ballaaran ummadda Soomaalida sida loo gaarsiinayo hindiseeyay inay dhigaan oo si dhab ah aynu u dhuuxno quwadda islaamnimadu ay leedahay xagga ilbaxnimada iyo cilmiga iyo xadaaradda adduunyada iyo talabaad haddii wax la isku qabto ku saabsan arrimaha islaamka si loogu noolaanayo oo doodo badan ay ka yimaadaan inay noqoto halka moranka la geeyo ee kala saara iyadoo cilmiyeysa taana way noogu jirtaa National Research Institute marka arrimaha caynkaas ayaa ka mid ah xisbiga heel qaran waxyaabaha uu ku dhaqaaqi doono haddii ummadda Soomaalida iyo Ilaahay ay noo gartaan inuu hawsha qabano waan gartay Axmed hawlaha jeegaysa oo dhami waa wax wanaagsan oo jira laakiin waxay u baahan yihiin degenaansho iyo salka meel la dhigo oo lagu qabto hadda waad ogtahay oo xamar ilaa laanta buur ayay al-shabaab iyo isu jiraan dawladdu ka horna xamar baaba lagu lagdamayo waad ogeyd marna afkooyay xamar dhexdooda hadda intaasaa ugu durugsan laanta buur waxa ay ka mid tahay un gobolka Banaadir dhexdiisa markaad eegto shabeellada hoose deegaan ahaan bay u raacaysaa ee masaaxadda markaad eegto waa meeshii magaalada xamar ku filaylahay dhinaca kalena balcad bay joogtaa oo ayba ilaa hadda haddii dawladdii hore jirtay ay istaaban lahaayeen labada magaalo xasiloonidii waxay taagan tahay ninkii fallaarta isha kaga dhacday dawadana kaga dhacday ee la yiri labada taan ka jira ee yiri bal horta isha ay dambaysaa fariista salkiga go marka hawshaas qaabkii loo qaban lahaa iyo sidii la yeeli lahaa inay bilan tahay ma waragtaa horta waa su'aal aad u culus loona baahan yahay dawladda Soomaalida maanta joogta in loogu mahadnaqo oo lagu taageero dadaalka ay keentay magaaladii Muqdisho maanta in la tagi karo oo shirin lagu qaban karo oo dooda lagu qaban karo oo dhexdeeda la socon karo maalintuun ha noqotee waa khayr soo kordhay wey marka anigu waan salaamaya dawladda dadka maanta haya kartida ay la yimaadeen iyo hawsha ay qabteen iyo dadkii la qabtay oo ka socda adduunyada kale laakiin adigaba wadiga sheegay say u xidhan tahay oo waxaan 20 mayl oo square haday aan ka bixinaya laga yaabaa inay noqoto inkastoo hawshu ay socoto anaga waxay nala taadaan xisbiga heel qaran dhowr amuurood in la isku wado sida loo dejinayo wadanka laakiin dejiskuna ma aha inta dejiso hadhow inaad ka fikirto maxaan yeeli anagu xisaabtii waxaan yeeli doona meel baan dhiganay qaar waan ku macnay laakiin arrinta security iyo nabadgelyada waa ugu horeysa way iyo ummadda sida loo heshiisiinay waa talaabo anaka waxa xisaabta noo taala waxa kamid ciidamo Soomaaliyeed waataan ku yiri in la dhiso
xoog leh waxaan ku qiyaasnay 25,000 ilaa 30,000 sannadoodna inay qaadanayso xoolo weyn la geliyo oo waataan kuu sheegay ciidamadaasina ujeeddadoodu wax kale ma hada waxa weeye ummadda Soomaalida inay gaashaan uga noqdaan wixii dibadda kaga imanaya iyaga dhibaya iyaga gudahoogana inay kala ilaaliyaan isku geysanayaan la kala ilaaliyo oo dawladan quwadda lahayn dawlad ma aha ya oo Ingiriis waxa la yiraahdaa state dawladdu shaqada ugu horeysa ee ay leedahay lagu garto haday dhab tahay waxa weeye monopoly on violence ina iyadu qandaraas cid kale aanay kula wadaagin hub iyo quwad inaan cid kale la wadaagin marka taasi sidii loo dhalin lahaa ciidamadii la dhiso waa taan soo dhignay wadamada adduunyada in la kaashado labadaas sanadood waa lagama maarmaan laakiin dhismihii ciidamada Soomaalida waxaa noo soo raacaa al-shabaab iyo dadka ku jira dhalinyarada ku jirta oo intooda badan ay caruurteennii tahay iyadana in la fahmo sida loola dhaqmayo hawshooda loo gelayo annaka 3 amuurood ayaa halkaa isleenahay waxbay ka qaban karaan mid waxa weeye horta ciidan Soomaaliya inuu jiro oo ummadda daafacad aba khatar wadanka gudihiisa kaga timid ama dibadda marka al-shabaab haday noqdaan khatar wadanka gudihiisa kaga timid ummadda sida loo daafacay waa in ciidanka la yeeshaa talabaadi waxa weeye al-shabaab gudahoog meelihii laga qaaday ee ay ka baxeen waa in la helaa oo ay sii diyaar tahay waxa lagu bedelayo waa amniga oo la adkeeyo iyo noloshii oo la soo celiyo baya mushtarigii la soo celiyo iskuuladii oo la soo celiyo biyihii oo la sameeyo wadooyinkii oo la sameeyo waana horumar ay u taala budgetkeedii iyo fikradeedii khaanada ku jirto oo maalinta magaalada laga baxo aad soo gelin karto taasina waa tasaddexaad waxa weeye al-shabaab waxaan ku caruurteennii baa ku jirta intooda badan iyagana inta la soo beer la xawsan karo ee laga dhaadhicin karo taariikhda wadanka dhismihiisa inay dib uga qayb galaan in wadadeedii loo furo dee inta iyagu doonayaanba ciidan kale adduunyada kale ka yimid oo shisheeye ah amba iyagu dan kale leh inay wadanka burburiyaan oo ay qabsadaan qof walba ay kadeedaan dee iyagana markaa dadka Soomaalidu inay jawaabtii iska cad la siiyo la iska daafaco waa lagama maarmaan laakiin anigu halka aan doonaya inaan taabto waxa weeye arrintan nabadgelyo wax khaanado badan baylada khaanadaha badan in la isku qabto waa lagama maarmaan waa gartay Axmed aan u soo noqdo hadda hawlaha ayaa xamar ka socda waxaa la go'aamiyey in 20 August la soo gabagabeeyo arrinta ku meel gaarka lagu magacaabo meel ka fog looga durki maayo ku meel gaar kale oo wax u eega oo sanqar kale ayaa bedeli doona laakiin ka yara adag xoogaa intii hore waxaa la diyaariyey dastuur dalka loo qoray dastuurkaasi waa fara badan yahay welina ma dhammaystirna oo sida aad ka muuqata maalin dhoweyda aad wada hadlayseen adiga iyo cabdiraxmaan baadiyo iyo wasiirka dastuurka iyo aad hadlayseen nuqdaadkaas tusayseen baa meesha ku jira qodobka ugu adag ee Soomaaliya warwarka ugu ballaaran ka qabtaana waa qodobka oo dadka Soomaaliga saqariga kabiira ka sameeyeen waa qodobka la xiriira arrimaha xuduudaha ee Soomaaliya oo aad moodo inaanu si negi u fadhiyo arrintaas maxaad ka qabtaan xisbi ahaan sideese isleedihiin uga qayb qaata maareynteeda horta aan ku horeysiiye anagu haddii hamadayadu ay dhabowdo hamadaana dee anagu waanu la iman dadaal laakiin dee ilaahay iyo ummadda Soomaalida khaasatan dadka baarlamaanka soo gelaya ayay u taalaatay inay gacan nagu siiyaan yeen kale waxaan aaminsanahay waqtigan kala guurka waxa bedelaya hadduu si dhaba u dhaco inay noqon doonto aasaas cusub oo adag oo dadka Soomaalidu socod cusub ay ka bilaabaan oo soo noqosho iyo xabaashi siyaasadda oo laga soo baxo oo karti iyo daacadnimo iyo corruption la'aan ay noqoto hadafka ummadda Soomaalidu ay ku jaan qaadayso adduunyaduna ay markaaba inagu garanayso arrintan dastuurku anagu haddaan nahay xisbiga heel qaran dadka ka soo shaqeeya waanu salaamaynaa waa hawl aad u dhibaato badan oo maskax weyn u baahan in badanna way ka soo shaqaynayeen oo wasiirka dastuurka anigu aad baan congratulation ugu siiyey isagii dadkii la soo shaqaynayay iyo dadkii madaxda ka ahaa dastuurka samayntiisa dastuurna waxa weeye xeerka ugu qoto dheer ee ummadii ay isku ogolaato ee kala saara markuu moranku yimaado isna fahamsiiyay inay meel u wada socdaan
distoorkan qabyada annagu waxaanu qabnaa qodobo badan ayaa ku jira oo u baahan waqti dheer in si buuxda yaa oo tafaqyatiran looga doodo waxaanu ku talinay markaa distoorkan siduu yahay in la daayo oo baarlamanka cusub loo daayo iyagaa waqti haysta loo daayo oo markaa ay furfuraan oo si wanaagsan uga doodaan dabadeetana waxay saxayaanna ay saxaan waxay bedelayaanna ay bedelaan hadhowtana markaa isagoo sidaa dib loo habeeyey ummaddii bannaanayd loo soo bandhigay istiftaa inta loo qaado ummaddii la weydiiyey siday caadadu ahaan jirta horta annaku hiil qaran haddaan nahay sidaa ayaanu ku talin arrinta laakiin haddii la wado oo sidan loo wado dee wixii ka soo baxa qaybun baanu ka qaadan tartankeyga iyo doodeeda iyo hagaajinteeda intay taagtay tahay arrinta xuduudka eed taabatay dee waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo waddan dee waxaa lagu gartaa inuu xuduudo leeyahay la yaqaano dadkuna ay yaqaanaan ku nool waddanka adduunyada kale iyo deriskuna ay yaqaanaan xuduudku wuxuu yahay soo maad garan dee annagu waxaanu qabnaa haddaanu nahay xisbigii hiil qaran xuduudka waddanka soomaalida mucayin buu ahaan jiro waa la yaqaana amba bad ha noqdo amba beri ha noqdo ya kaasi in dib in maxaan ku lahay laba taantaanu noqdo imakana waa lagama maarmaan hadda sida uu u qoran yahay waxay tahay haddii ay dhacdo wax khilaafaadii inuu ka yimaado arrintaas in laga gelayo wada hadal qoraahdaasaad yaro moodaa dadku kelmadda ay ka kacsan yihiin oo ay u arkaan haddii shaarkaaga lagu qabto lagugula dhigo baayactan baan ka gelaya dalkuma galo marka haddii aynu intaa aad ku tiri uga gudubno anigoo intaa kaaga ifanaya anagu haddaanu nahay xisbiga hiil qaran dee arrinta sidaa loo dhigay ma ogolin ma ogolin dadka deriskiihii waa isku qaqabsan karaan maxaan ku lahayey halkan kilomitar iyo kaa kilomitar iyo waa la isku qaqabsan karaa laakiin dee soomaaliya shalay maanta may dhalan waa la yaqaanay waddanka ya waxaynu nahay 250 sannadood baynu dawlad ahayn waa la yaqaanay xuduudadeeda iyo xeebteedu siday tahay marka haddii aanu nahay hiil qaran waxaanu ku adkaysanaynaa wixii lagu yaqaanay ummadda soomaalida xuduudadeeda in la ixtiraamo oo adduunyada kale ay garato waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan haddana dhinac kale u gudubno odayaal soomaaliyeed baa loo saaray arrinta soo xulitaanka xildhibaanada iyo dadka ansixinaya dastuurka labadaba odayaasha soomaalida markii la keenayey muddo dheer baan dagaal ku soo jirnay oo dagaalkaasi dhinac yacni ayaga laftooda burburintooda uga geystay warloodyadii cidda ay rabeen bay meel iska dhigayeen iska fogeynayeen mid kale ay keensanayeen al-shabaab iyo dowladdii cabdilaahi yuusuf al-shabaab iyo dowladda hadda joogta lafteeda yacni wixii saasay u socdeen marka odayaal dhaqameedyo badan oo kuwii asaliga ahaa oo dadku u soo joogsanayay oo qabaa'ilku lahaa ah ayaa la tilmaamayaa inay bannaanka fadhiyaan qaar kalena inay gudaha ku jiraan baa la tilmaamayaa guddigii vetinka loo sameeyey ama khilaafaadka xallintiisana horey looma magacaabin hadda 3 isha ka hor baa la magacaabay baa lii waxaa la sheegayaa warar xog ogaalkii sheegayaan in ugu yaraan 6 qofood oo ka mida kuwii la isku haystay ay ku jiraan ayaga laftooda oo kuwii kaloo haystay ay bannaanka fadhiyaan seedabaad u aragtaan in loo xallilo hiil qaran ahaan mashaakilka noocaasa si odayaasha soomaalidu ayagoo ah kuwii dhaqanka ee biyuurka ahaa baraxda ay arrintaasi mas-uuliyaddeeda u qaataan annagu haddaanu hiil qaran nahay waxaanu adduunyada ugu dhawaaqnay iyadoo qoranna laga heli karaa internetka iyo meel walba iyo website waananu haynaa waraaqdii markii shirkii london la qabanayay waa lana soo weydiiyey waraaq baanu qornay waraaqdana waxaanu ku talinaynay waddada la marayaa siday u ekaan karto oo lagaga baxsan lahaa arrimaha iminka aad ka hadlayso annagu waxaanu ku talin 100 qof oo Soomaali ah oo degmooyinka ka kala socda laakiin la soo xulay oo criteria lagu soo xulay ay tahay kartidooda sharafkooda daacadnimadooda ya magaca ay leeyihiin miidii Soomaalida ya la soo rag iyo dumar oo iyaga marka gacanta laga saaro inay noqdaan dadkii dejinayay hawshan sida loo galayo taadamada ayaan 3 dawladood oo adduunyadiina ay gaashaan iyo garab ku siiyaan
waxay u baahan yihiin si hawsha ay u fuliyaan dadkaas saddexda dawladna waxaan idhi ha noqdaan Norway oo dawladaha Yurub ka tirsan ha noqoto Turkey oo dadka adduunyada islaamka ka tirsan South Africa oo ka tirsan wadamada maxaan ku Afrika saddexda midna aanu dan ka lahayn inuu adduunyada kala qabsado oo meelo kala oo tago oo imperial maskaxda aanay kaga jirin caynkaas ayaanu ku talin warqadda waa la akhrisan karaa dee tiimay dhicin waa tanaa socota annagu waxaan qabnaa horta dee madaxtinimadu haddaad waddan madax ka tahay dawladda wakhtigaa joogta weligeedba intay doonta ku meel gaar ha noqoto daacadnimada iyo kartidu waa waxa lagu garta dawlad waxay ahayd arrintaas in hore loo sii baandheeyo markii la gartay in sidaa la gelayo degdeg in loo baandheeyo loo nadiifiyo ummaddii ilaa hadday ujeeddadaadu tahay ummaddii inaad ka saarto godka ay ku jirto dantaada yar ee adiga amba kursiga kaa haysa amba meesha aad joogto intaad meel iska dhigto horta dadkaagii tabaabashadoodii gal marka waxaa halkan ina dhigay waxyaaba waxaa ka mid a wakhtigii oo gaaban oon hore dadaalkeygii u iman marka iminka ka gaadhsii ay noqoto iyo iyada oo laga yaabo gacan qaldani inay ku jirto oo ka danaysanaysa ya arrimahaas marka way adag tahay wakhtigan joogaa iyadoo cadceeddii dhacayso wakhtigiina uu isxidhayo sida inta dib wixii oo dhan loogu noqdo loo wada soxo waxaanu markaa ku talinaynaa intii la sixi karo wakhtigan inta ka hadhay in la soxo su-aasha kalean rabay inaan halkaa kaa weydiiyaa waxay tahay adigoo noo soo ururinaya oon qaybsanayno waqti 5 daqiiqa oo noo haray anaan rabo weliba dardaaran inaad bixiso waxa weeye maalintii dhoweyd ee aad dooda ku jirteen adiga iyo cabdiraxmaan baadiyo iyo wasiirku waxaad soo jeediseen in laga wada hadlo sidii loo heli lahaa guddi doorasho oo ka madax bannaan يعني dadka tartamaya ama dawladda ha ku jireen ama meel kale ha ka yimaadeen waxaanu ballan qaaday oo yiri in arrimahan xalilkooda laftooda waxaanu ballan qaaday markii wasiirku waxaan ogolahay saaxiibadaya inaanu wada fariisano oo wada hadallo arrintaasi ma hadalkii microphone-kay ku ekayd mase wax wada hadalood isla gaarteen way jiraan waana ku talay jirtaan inaad waqti qoondayso waxaanu ilaa maanta isla gaadhnay ma jirto wasiirku saw ku mahadsan yahay hadduu ballankaa qaaday waanu rajaynaynaa waana wax ku habboon waqtiga in la sameeyo degdeg loo sameeyo guddi miid ah oo yar oo markhaati ka noqoto doorashooyinka ka soo socdaa inay xalaal yihiin inay transparent yihiin inay ummaddu wada arkayso baarlamaanka ku jira dadka ku jira ay wada arkayaan waa lagama maarmaan waayo wadada cusub ayay u noqonaysaa tallaabadii ugu horeysay waan ka sugaynaa markaa wasiirka iyo dadka dawladda maanta gacanta ku haya inay arrinta caynkaas fahmaan oo degdeg wax uga qabtaan ugu dambeyntii adiga oo dardaaran يعني أنا روا إن دردار نجد سومد سومالي ده هاي كلها تاعي عاد أوران لهاي فرصة كوس يعني هل دقيقة هي برنك سو كوبيا ما حد كل دردار من هاي تتعاوق داونا ومدة واحد كل دردار ميا وقتها إن سوفوت صار دباتوين بدني هكوه الريان وإما هين كوجبنا wuxuu noqon karaa waqti ummadda Soomaaliyeed xabaashi siyaasadda ay ka soo baxo taana waxa kaga soo bixi kartaa vision cusub ya madax cusub iyo karti cusub iyo daacadnimo cusub ay kaga soo bixi kartaa taa haddii ilaahay lala kaashado ummadda Soomaaliyeed la garato haddii aanu nahay xisbigii xil qaran waxaanu ku kalsoonahay karti cusub vision cusub ya iyo daacadnimo cusub iyo cadaalad cusub inaanu waddanka ku qabanno aanu hawshiisii ku galno ilaahayna taasaanu ka baryaynaa inuu nagu garab galo ummadda Soomaaliyeed inay siiso fursad aanu taa ku furino si aynu u soo noqono sharafkeena u soo noqono daawadayaal intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeygii gaarka ahaa ee waraysiga ahaa ee la yeelanay Professor Axmed Ismaaciil Samatar aad iyo aad